workshopka wuxuu ku yaalaa dalka Sweden muddo 5 sano ayuu furaa waxaan ka shaqeynaa suwaafta Soomaaliya taabacno buuggan Dr. Abdullah Qoray waxaan taabacnay sanadkan 2023 waxaan ugu taabacay dalka Sweden وقت عن طبعاً هي قال يعني ناس موجود وأفصال كبرى بوك بيا عن طبعاً وحكمنا بوك حتى يلا ورجاله قري وطلعوا لي لما حاتي واحدة لما كيف عيسى بوكاس أخيتي سال ويعني لماذا يوم أبوطا كل حن كنت جدا وحبنا ما كفاية إنسان ونعاتي أنا واحد وحاكم قلت لها إلى العاوي ستان بوكاس وواليه ككنا بوك مقعيش كتالو ونعاتي وحبنا ما كفاية إنسان أنا waxaan aaminsanahay in haddii aad rabtinsado inaad Soomaaliya ka daadatid way aragnimo iyo aqoon ku sii dheeraan maayo dad badan baa ka hadli doona laakiin soo dhawaada buugana hada iibsado bilxaqiiqa waa mahadsantihiin anigu كلية أقول فرحسنا هاي ضدك أنتي أنا كلكم سودا يعني أنتي كلاميسي أنتي ما قسم أخلي الحين ما أنت مو بالوقت سومالي قيد تمام كوسوب هاي لبضكم يسرعكي لكن ما أنت ما شاء الله إن سومالي ولا سومالي علم المرء آخر صندوق طلوع صوت جميل مدحونا نقول سنة مدرس إن شاء الله وحبنا كل يوم بس ما كبرنا ولا ما نقول عندنا سلام كدل waxaa sharaf weyn oo farxad weyn maanta inaan goobjoog u ahaado buugga uu soo saaray Professor Ra'iisul Wasaare hore Cabdiweli Maxamed Cali Gaas isla markaana ahaa madaxweynihii Puntland ka horna ahaa Ra'iisul Wasaare ku-xigeen iyo wasiirkii qorsheynta xiriirka caalamiga madaxa laba socotaan xildhibaan u ahaa كل يوم يعني هذا وقرن كرتان وقت كجلي سومالي من تبغى كيف تبغى قاعد وراك سوق هسي شيء كوني والله يا واحد تعرف لي روح والله سنكون من شكلك أنا قلت أنتم أبتسمين هذا إلا يوم بقول لي ما نسمعك لكن وحكمني مثلا قرار اليوتيوب كاس وأنفعها هي حضرت تلفزيون صباحها هي أنا أقول الآن سيكون مايو maxay yahay maxaadka loo baahnay waxaan ahaa Ra'iisul Wasaare ku-xigeenkii Professor Cabdi Maxamed Weli buugga waxa ku qoran waa waxaan la socday laakiin waxaan muhiim inuu ku tusi karo buuggan meesha laga yimi Cabdiweli oo nin dhalinyaro yaraatis ka shaqeeyo ka arki doontaan mustaqbalka qofku inuu ku xeeyo dadaalkiisa ay tahay in abuur akhriska gudihiisa waxaa kaga filan taariikhda uu soo maray iyo heerka uu soo gaaray إنت وحدين بوجه الحكومة يا تعريف بدرتي إلا يجيك الوزارة وجوده وحصل لك بعتبر وحملاتك إنت صوت الحين العين بوجه حكاك تقولان قرح الوضع قرح حتيات وكان عندك وجود معي إلى أن يبدي لكن تبغى بعض المعارض
waxaan xasuustaa qaawanka markaan dib ka baxayay inaan iyo wasaaraha iyo wasiir loo saaray gabadh xaamilo ah ay noo soo gashay uqadda saaray oo dhiigga dhaqdamay marka waxaan u qaadanay in ilmihii uu soo noqday laakiin waa dhaawac mid kaga yahay marxalaad bala soo maray kumagaalada wax loo tiiri waxa uu yahay dhibaatada laga haysatay wadanku dhaqaale ma jiro al-shabaabku waa joogay dakhliga soo leeyahay aad buu u yaraa waxaa loo tiiri in wadanka markii ugu horeysay goboladaa shaqeynayay ay u suurta gashay in kumagaal laga baxo in laga baxana wax sahlan ma ahayn maxaa yeelay dhaqaala loo baahnaa amniga loo baahnaa inta badan buu ka qabtay ra-iisul wasaare cabdi inta lacag weysan buu ahaa waxaan xasuustaa habeenkiisa guriga u joogno oon u shaqeynayno inaan halkaa seexano qaarna fadhiga ay saxdaan qaarna ay sariirta seexdaan ismarihay intaan soo shaqeynayay aniga waxaan u shaqeeyay 8 wasaare umalaya cabdiweyne maxamed cali gaas sidii uu soo shaqeeyey iyo kaga saaray kumagaadka ciidamada geyso buga kusan tahay haddii beesha caalamka dhaqaalihi lagu tagay in siin weeyey haddii kumagaadkan ka baxna loo baahan yahay 20 August haddii reer dib loo noqonayo waa isku tashanay ganacsadii Soomaaliyeed baan inta dhex galay ayaga ayaa deyntii aan ku soo aruurinay odayaasha dhaqanka iyo 825 ergada ku dhaleysay charterka noocaasisay ayaa laga gelisay waxayna ahayd kalsooni u qabay xukuumadii Cabdiweyne Maxamed Cali Gaas iyo ganacsada Soomaaliyeed markasta taban adag iyo wadanka inay caawiyo taagnaa waa laga yaabaa qaarkood ay ka maqan tahay deyntii ayada ahayd waxaan ka cunsan karaa suuqaan la yiraahdo oo haddaba wixii xamar jooga garanayeen hotel suuqa furan yahay subax yaha gabadho oo odayaasha dhaqanka loo dhigana oo bixi ku dhacdo wahay oo tan wasaarada ugu maray lahadlay oo nabi wasaar maxaa tala 825 erga iyo 135 oo dhaqanka ah oo gurac loo dhigay يعني halkaas aan soo noqday halkaas aan arkay aad waan ku faraxsanahay munaasabadan qiimaha weyn oo maanta uu soo qodin doono buuga aadka loo sugayay in la soo noqdo kala duwanka dadkana aniga runtii farxad gaar ay tahay laakiin sheekada maayo gaas markuu ra-iisul wasaaraha ahaa iyo sidoo kaleeto markii uu madaxweynaha ahaa intaba anigu waa usoo shaqeeyey si gaar waxaan ugu xusuustaa markii socdaalka dalka aan mideynay oo fiisooyinkii tirada badnaa ee gobolada u bixin jiray aan halkan kusoo aruurinayay kaalintii uu ka ciyaaray ayaan aad iyo aad u xusuustaa runtii weliba wuxuu qaatay madaxweynayaasha kale hawl ka culus ayuu qaatay in Puntland laga qaadaliyo in dalku uu yeesho hal xad halkiisa iyo hal socdaal madaxweyne aad iyo aad ayaan mahadcelinayaa maalinta koodimid sida mustaqbalkiisa sida madaxweynada atroontii kula qaatay arrinta ayadaha iyadoo madaxweynaha qoraalada ka sameyn doonaa haddii aan yidhaahdo anigu waxaan ka mid ahaa saraakiisha ciidanka amniga ka shaqeynaysay gaar ahaan amniga madaxtooyada mas-uuliyiinteeda ayay ka tirsanaa xilliga ra-iisul wasaaraha u ahaa xilli adag oo colaaduna koowaad siyaasaduna koowaad wax kastoo adkaadeen dhaqaalina jirin issueska laga hadlayo waxa ahayd sidee kumagaal uga baxnaa oo dowlad uga hadalnaa sida u dhisan lahayd taan baa laga hadli jiray waxaa hadda miiska inagada saameeyay miiska dowlada waxaan xasuustaa mid kale arrimankii dhacay buugay ku qoran masjidka galayna waxaan xasuustaa intii galguurku socday mar ciidanka madaxtooyada oo aniga taliyaha u ahaa ay xabad isaga dhaceen iyadoo ay saameynayso siyaasadda koowaad oo ninkaas meesha jirtay haddana wax walba waa la xallin hadda Soomaaliya meesha lama xalliyo waxaa arkaysa wasiirku ka hadlaya wax ma xallin karo waa ugu adag tahay xildhibaanka waa ugu adag tahay waayo dadkii matali jiray issueska soo baxda ay xallin jiray mushkilada meesha ay ka dhacday ma dhaafi jirin waxaana arrintaana waxaa tusaale ku ahaa ra-iisul wasaare madaxweyne maxamed cali gaas ayaa
ayaa u ahaa waxaa meeshaas ku qoranaya markhaatiyan ka ahayn waxaana marka buuggaas dowladda ku fadhiyaa inaad ka faa'iidaysataan gaanahaan dhalinyarada halka fadhisa oo aniguna arrintii isku yaabinaa inaan qaato buugga akhristo kana faa'iidaysto marka waxaan kula dardaarmaya ka faa'iidaysataan in la akhriyo la badiyo la sii qaybiyo intii wasaaro madaxweyne aad iyo aad kaga mahadcelinaynaa dalka intaad u qabatay iyo intaad ila qabatay aniga marka aniga waxaan ahaa geesi aan ka taynayo kumeegaadkii magaalada gaas baan ku daaraa أقول waxaan siyaasi oo siyaasiyiinta hadlay laakiin waxaan ahay dad kale oo Cabdullaahi intii yaqaanaa oo shaqeeyay oo ayaan shaqooyin ku wadaanaa u badan aan baahan shaqsiyiisa laakiin waxaan qoraa in soo afcaal wax ku qoro oo badan oo laakiin waxaan adduunka soo xiriirnay xarfu koowaad ilaa xarfu dambeeya kadib waxaan rabaa inaan aragtidayda aan ka wado anoo ka dhaqaaqay inaan ahay qoraa qoray Cabdullaahi Ismaaciil ka shaqeeyay dhowr mar gudaha shaqeeyay dhowr mar ayaan gudaha ugu tagay martigeliyay dhowr mar Ismaaciil oo Ismaaciil laakiin calaaqo shakhsi ah aniga asagana dhaxmarta waxaa dhigaysa gudub 2018 bisha afraad shirarka waxaa dalbay oo Sacuudi oo shaqeeyay inkastoo xilliga xubinta saddex ay macsanay إذا ما صار شخص يعني مثل السياسي أو ما له مسك أو سياسة كلها أو شيء كذا يقول هنا يقول لكن بدل ما نسافر وحديث صحيح بنت مفعال ويقول الاعتراض وحديث صحيح جميل يقول وحديث صحيح أقولها بنت ما هذه البطة الزبيرة وحديث صحيح ولا من أكثر وحديث صحيح مجعل يحاسب السفع مجعل وحديث صحيح إن هذا أيام شخصية الصب وزارة الأمور عبورتين أنا أقول ورسل على مرة دوان كلنا نمتي وأنا مسلمين وأنا كلنا نقول إنه يكون كلنا أصلا وبرين وهذا من الذي نمتي نمتي نقول كلنا وسمعنا أحياء وقولوا مثلا ونذكر كنت في عن الصومالي هذا عبركي مركز لقاها اللي إنجليز صومالي قف كفي عن كفي يحسب بدون اسم وصومالي عن كل مركز الحمد لله الحمد لله مشرك وحاشد كل اسمع وعي من السياسة وريد ودائر وعافمار المسلمين شوية مستحيات من هذا أولها ما نسمعه خيارات كده بنتا بروجرام مع أفعال عن الدكتوراه كمسيرة ذاتية بنتا الدولات وخيارات وحتى بروجرام قفل الآن شكل بروجرام وسكت الآن شو مفروض وسكت المفعم بالحيوانات استسعى ولا يكون صومالي ولا قفل الآن يكون السياسة الصومالي كتير وهل بيان القانون وهل جمع شيء لكن وزارة الدول تجربة القانون وهل بيان إلا وقت شيء يعني وكل شيء متعود يسوي شيء يقول شيء أنا أفهم كحس كذا قرآن من شيء يقول عليه إنه أكون وهاي ممكن أن كتب السياسة التي يهم أن يسوي مثلا في مصطلح يعني هي حكيت إنه يقول عن هذه المصلحات الشخصية وحابوا قلت إنه وزارة الدول وصلاحية المصلحات الشخصية ومؤسسة دفاعية باش تركي يكون يجوا من حديث السياسة لها أنت لما يكون مناعية من المصالح وأيضا إنه ما نصو سرطان مسلم العوام ونجم ذلك أيوتان أنت لما كنت وهذا لما نقول سؤال في عروشة دين وزارة محاكمة لها هديك أي أصابع ورشاة كل حمل كانت شاب يعني وأقول أن مش معناه كل اسم الوزراء وحمل الكلام أصيلين وغيرهم وبنعيد بالكين كلهم وبالكين بيسوا وهذا دين وهذا يربطون وهذا أيضا يعني الحروف كانوا يسمون سيد وشنا وقت ما من الناس يقولون كنا واحد كلهم حرام إلى أدرك عن مصادفة هالناس أيام مش يسوق الإسبوعي هدول يعني استعمل هذا الشلال وعلى جال سعادة ولا مرضية وصومالي كلهم يسوون هذا
عن محمد في شعور يعني صراحة عبد الله أنا وحاولت الإنسان يوقفني من أيقونة هاي إلى المدينة المسافرين شريف حسن شريف سكين عبد الله سبحانه وتعالى أي شيء وغير سماع أمين كمان كمان حتى لو اسمه مش سمعته أهل الولاد له وعمل وأنا حاجة البروسة من طبعا شخصية وحاطط على وجه وهي كمان أصور المسجد ويجي من الفضاء وحامل الممكن ده يخدمني هي القصة كلها في هذا القصة لكن بدأ الله في الاستيعاب مثلا بالنسبة للعمل كمان سنة يستمر يعني بس هو قال يا إيه بس ممكن تبدأ ممكن يعني أردت قاعدة إيش مثلا دبر يكون في الدورة دبر يكون على الدورة سير ولا سير أيام دكتور حسن لطفي وعليه خبير جامعة أو أفريقيا الأوروبية أيام صومالي بكر صومالي ما يقول هذا يوم سبب وين هذا يوم صومالي وحرب الاتحاد كما خرب وكان وكم هذا وفي كل دارهم وفي هذا عرفتي يقول صومالي عرفتي هبطة هاي بيان خرب وهذا مرة كلهم على نبينا ومن البنيان وما يكون في الصلاة وما يسمون الأولاد السحرين إبن الفزمان جميل سورة وميسحتها ما عمل على قال على وقت السمرين عرفتي يوم وهذا اليوم حلم إسلامنا دولة النبوية وهذه فلسفة رئيسة عليه تبقى على كتابة الرئيسي محمد الغزالي يقول الحكومة هذه الفلاسفة أصلا كل من الفلاسفة المسلمين وفي كتير فلسفة جديدة قابلة كاتي كم من الشيخين من التمايا سجل التقدير وبركاته وتافت بقوله من هذا النهار وكسر بالبداية بقول على الفيديو وبقول في سؤال المبادرة وبقول ما بقول صوت سماع البريد ولا على المبادرة العادية أنت على الفيديو وعن مكان الفيديو عن بريد يهرب كل شيء محل وحنا وجودك على الفيديو وسجلك الله يا قف من يريد تجيب من دائما وراء دائما وعلى الله يتمنى سؤال الأولى التي تأثير من جيب الصوص غيرها وأنا محبوب بيتي وليس أولي بعد المعطلة وحاولت أن أفكر سريع أفكر سريع محبوب بل أريد أن أفضل ما تجد من الأركان إذا مالكي يسلكيكي يلبكي يغبارين يرحلين يمشاكيكي ويسل الدالي حبا وحلال الولاد ولدي والاعترافات وكل واحد من الدالة لكن دوتي كسر سعر الخلمانية والناسيتي ويلبكي مقام كورا يدمرون السلوك warkii intiisa fiicay waa la yiri xasan qaranna maaragtay si fiican buu u taabtaabtay aniga cabdulla sheekh maxamed ali yiraahdaa waxaan ahaa wasiirkii waxbarashada bariga madaxweyne cabdiweli uu ahaa wasiirkii qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga xukuumaddii uu prime minister ka ahaa maxamed cabdullaahi farmaajo uu madaxweynena ka ahaa shariif sheekh axmed ma la xasuustaa marka madaxweyne cabdiweli waxaan ka soo wada jeednaa aniga asiga maraykanka isna wuxuu ka yimid magaalo la yidhahdo buffalo oo gobolka stateka new york ka tirsan anna waxaan ka socday ohio meel la yidhaahdo berigii waxay ahayd oo diasporaha ay dalka yimaadeen oo amiin caamir uu yidhi markay kasoo degeen airboortka xamar waxay yidhahdeen xaggaas maxay ahaan jirtay meeshan maxay ahaan jirtay oo maaragtay magaalada dhismaheedii lagu wareeray dadkii wareeray aan ka mid ahayn anigii madaxweyne cabdiweli runtiina berigaas أمسهم جوارده لو قاعد يجي وزير هذه الدولة دبا جاري شعب أو مشيبل أما رجح بري أما بيجربه واحد جري جوارده ساوث أفريقيا لا يكيرو أو لو تلا قال إمارات إنتقال لو قالوا أو كوا من مدو عقاربة يعني راعي جري على أي حال إن ما أنت حنو جونا بوقي عبدي مدحين عبدوي وقري رنتي وانسود وينا يا وأنا قوم هالعلنا يا دلالك وسبعين وعنصر بقى ما دام أنا هي أخوياً حاجة وحبرشة أنا متخصصي إلى مركو هري إن أو جامع عمر cultural center أنا أمهد اليو إن هي دان رنتي أمد وحي هرمر قارتها أما أي مسير كذا كبر تشتها
markay leeyihiin goobo la isugu yimaado oo xiwaar iyo wada hadal iyo wax isweydaarsi uu ka dhacayo marka aad baa runtii farxad ii gelinaysaa oo jaamaca center inuu yahay meel dhaqanka Soomaalida culture-ka Soomaalida taariikhda Soomaalida lagu hayo oo runtii buugaagtan iyo wax la mid ah baa maaragtay lagu qabto aan gacan siino culture center-ka aan u saabiya dadka ay sameeyaan Soomaalida buug ma qorto mana akhriso waa sida la leeyahay wadamada qarbiga aan ka nimid waxa la yiraahdaa dadka qaarkiis haddii aad lacag u geliso buug oo miiska saarto weliga lacagta markaayo oo maxay yeelay buugga ma furayo qofkaas warkaas bidi galay yani buuggu waxa loo qoray in qofku fariisto akhriyo wax ka fahmo tala ka dhiibto sida qorana uu sheegay hadduu doono radul ficil sameeyo yiraahdo waana jiraan buugta waxa laga sameeyaa buug kale oo yiraahda buug Cabdiwali oo qori uu ficnaa waxaan ku ficnaa waxaan oo sheeg laakiin wuxuu ka tagay kan ka tagay kan uu ku dari kan wala sameyn karaa marka waa inaan noqonaa horta ummad wax akhrisa waxna qortaa ummad hadaysan waxba qorin waxna akhrinin xadaarad ma gaarto Soomaaliya waxa la oral society oo waa gabayna laakiin gabaygan waa uu qalbigan ku hayna laakiin ma hatta ma تعبير ما كوسا بينه قبل كم سبعين مركا رنتي وافرحت بيجلسها إن culture أو قريتانا أو دلك كبل لوذي أو لا سماه book shows لو سماه حمر هرجيسة جيجا بيرو الصومالي دينتها book shows لو سماه بوقت سوق عركود تيجي بدينا الصومالي بقرن أولي أن لجارين هركي بوقت عالمي لها أن لجارين لكن هذا أي بلويهين رنتي وحنسلاي هاي وهرمون لجارين marka uu soo laabto saaxiibkii Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo wax badan buuga ku qoray magaciigana isagoo aan iga qaadan permission meel badan oo ka soo qoray waxaan ahayn saddexdii wasiir ku jirtay golaha wasiirada ee raacay madaxweyne Shariif markii la aaday Kampala Accord isagii anigana horta isagii aniga waxa iska baray saaxiibtay حاسكيسة دكتورة خالد سعيد عيسى سوالف بري هم يراهن صاحبتي ميراهن لكن وا دكي هره حسوا ديه جيرين marka wala shay دكتورة خالد سعيد عيسى oo aan Soomaaliya isku naqinay oo jaamacadda Lafoola ka soo wada baxnay oo aan Mareykanka isku aragnay ayaan waxaan arkay iyadoo wadaadkan u daba socdo marka waxaan wadaadkan muxuu ahaa magaciisa sidaas ayaan isku baranay saaxiibkay markaan Kampala tagnay waxyar baan rabaa inaan sheego muhiim ah Kampala markaan tagnay Soomaaliya waxay haystaa Cabdiwali anigana laba koox kala dhahay Soomaaliya badanaa dadku waxay geliyaan gobollo ay geliyaan waxa la leeyahay oo ninkaas uu matala ninkaan uu matala laakiin Cabdiwali aniga isku siyaasad baan ahayn isku mabda aan ahayn mabda'in wuxuu ahaa in xukuumadda tayo ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hogaaminayay oo runtii dalka wax badan u qabatay inay ka badbaado Kampala Accord iyo howlaha ka soo bixi doona waxaan meesha u joognay badbaadada cabinetkaas waxaan daqiiqad walba la hadlaynay Prime Minister Maxamed Cabdullaahi Farmaajo macnaheedu ma aha in madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka aan ka soo horjeednay laakiin waxay ahayd maslaxadeena anaga inaan ilaalino maxaa ka shaqeynaya Soomaaliya waxa shaqeynaya waxay ahayd cabinet oo aqoonyahan ay ku jireen oo howlo qabtay oo waxbarashadii dhaqaalihii dalka heshiisa qabanaysay hase ahaatee waxaan noo muuqatay in meesha ay ka socoto mu'aamaraad طبعا سياسة waxay leedahay game la ciyaaro oo labada qof ee siyaasadda ku dirsanaa bariga oo ahaa madaxweyne Sheekh Shariif iyo gudoomiyaha baarlamaanka waqtigaas Shariif Xasan Sheekh Aadan naanasta waa in laga ilaaliyo waxay keentay in xukuumadeeni ay rabto inay gacanta ka bixi rabto Cabdiwali yani wax alla waxaan sameynay way noo shaqeyn weysay marka waxaan soo wacnay Prime Minister Farmaajo waxaan ku noo Farmaajo meesha culays badan baa ka jira waxa laga yaabaa in annaga nala kala tuuro ee waxaan rabnaa aniga Cabdiwali inaan galabta Kampala dhexdeeda isku casilno oo idaacadaha u yeerno oo aan ilaahdo meesha mu'aamara ka socota xukuumadda dalka ayaa la rabaa in la burburiyo annagana waa ka soo horjeednaa xukuumaddu waa in maaragtay meesheeda ka shaqeysaa Farmaajo meeshaada joog adiga ee cabinetka intiina kale laakiin labadeena is casilayna idaacadaha annaga ka hadlayno Cabdiwali tan go'aanka gaarin wuxuu yiri war mana hubtaa go'aankaas markaas waxaan ku yiri istikhaara dukanina salaad baan dukanay waxaan yiri go'aan baa gaarin waa is casilayna
markaan madaxweyne farmaajo prime minister farmaajo u sheegna arrintii buu wuxuu yidhi wax yar ii suga waa fiican tihiin khayr alla idin siiyo walaal jiraad tihiin wax yar ii suga telefoon u dirdiray xooga kadib na soo wuxuu yidhi caawaan idin imaanaya I will come to Kampala myself mistake ugu weyn oo siyaasi Soomaali sameeytaas ahayd waa ra'yigayga prime minister farmaajo wuxuu noogu yimid Kampala waxaan ku niri aan wada tashano anigii adiga iyo Cabdiweli aan wada fariisano wada tashano waayahay yiri hase ahaatee siyaasiyiintii meesha ka shaqeynaya waxay ogaadeen Cabdiweli iyo Cabdinuur in laga ilaaliyo farmaajo inay arkaan warqad maqasheen in laga ilaaliyo waa waqti dambe hal kala hooydo waa 1 o'clock buu yimid habeenimo waa daalantihiin prime minister ha nasto idinkuna nasta aroorta soo nimaado waayahay balay habeen waa loo abriista soo lama dhihin ilaa in nidaamkii Sacuudiga wuxuu ahaa intaysan Cabdiweli Cabdinuur soo toosin 5 o'clock shir hal galo hal la heshiiyo go'aan hal gaaro maslaxada dalka laga taliyo sidee wax noqdeenba aroorta Cabdiweli loo yeeray anigi iyo rag kale baana loo yeeray prime minister waa tanaasulay war subhanallah alwahid alqahar waxay ahayd yiraahdeen dadka qaarkiis hay tanaasulad kan waxay tahay kuwa kale bay tanaasulaan way ay tanaasuleen waxa keenay tanaasul muxuu yahay meesha xooga buuqa ka dhacay saxabkii Cabdiweli ka soo baxay marka oo noqday qofkii meesha ka soo baxay prime minister loo rabo in loo magacaabo waxaan ku saaxib aniga shalay istikhara wada dirnay goorma cilana prime minister ma qalqalsatay weli wala kabto waxa ku yiri nimankiina oo reer mudug yani waxa la sheegay waxba ka jira saaxibo inta ay shaqeynayso oo kala meel ka wadi laakiin bari buu ka ahaa maxaa Cabdullaahi Farmaajo khayr Allah siiyo dadka wax faagfaaga wax barbaara ma ahayn wuxuu yiri kaabinetka dadka ku jira walaalahay 4.5 waxa isla Cabdiweli aslanahay Cabdiweli booska hadalo yani waa runtii wadannimo aan dadka qaarkii aysan heli karin oo inay wax barbaaraan oo kana abti yahay kana adeer yahay kana isku lafnahay bay raadin lahayn waa waxyaabaha ugu wanaagsan ee kamid ah maxaa Cabdullaahi Farmaajo saaxiibkay meeshaas ayuu ku soo baxay kadibna prime minister ku noqday marka waxaan leeyahay buug wax badan oo fiican baa ku qoran wax badan oo maaragtay dabcan isaga soo u arkaya ku qoran dadkuna sidoo qoran sheegay iyagoo wada jooga kulankan aan wada joogno ayaa qofba dhinac u ka arkaa kulankaas uu yahay oo hadii caashay buug qorto iyo faarax buug qoro kulankan ka hadlaya waxa laga yaabaa in qaar ay ka midaysan yihiin qaarna ay ku kala duwan yihiin waana sax wax jira waayo oo maaragtay caadi ah marka runtii waxay ay tahay farxad inaan ka soo qayb galo maanta daafurka buuga walaalkay Cabdiweli Maxamed Cali Gaas runtii waa geesinimo in maaragtay qofku wax qoro waana nidaam u baahan inaan bilowno anagoo dhan aniga lafteeda buug baan qoraya waana soo socda haduu Ilaahay yiraahdo laakiin wuxuu ku saabsan yahay waxbarashada dalka iyo geedi socodkii waxbarashada Soomaaliya meesha soo martay bidin Ilaahay tacaala uu iman doona waqtigeeda marka la gaaro buuga hal iibsado lacag baa la gelin doonaa hadda buugta marka la iibsado kulli lacag baa la gelinaa lacagta hal fiir hal ka dhax fiir buuga oo hal akhriyo marka si kooban waxaan ugu haysataa ra'iisul wasaare iyo madaxweyne Cabdiweli Cali Gaas inuu sameeyo horta diiwaangelin dadka siyaasiyiinta ah kuma badna inta ay siyaasadda ku jiraan oo siyaasadda ka shaqeynayaan inay ku dhiiradaan inay qoraan oo awoodda u soo joogeen ka sheekeeyaan ama muhiimada hore ay qayb ka ahaayeen ay ka sheekeeyaan oo meelaha qaarkood ay magacaabaan dacdooyin laga yaabo in dad kale ay kala dhaxaysay oo aysan xitaa laga yaabo qaarkood inay kala aragti duwan yihiin marka waa dhaqan aan ugu danayn oo wanaagsan oo xujada ku noqonaya dadka kale la fadhiya oo wax badan u soo joogay inay ku dhiiradaan inta ay mudan yihiin inay waxyaabihii qaybta ka ahaayeen wixii u soo joogeen waxay ka shaqeeyeen intaba iyo aragtiyahooda inay caddeeyaan haddii aysan taa dhicin marka waxaa imaanaysa in ayagoo waxba ka dhihi kara laga sheekeeyo oo waxay ka dhihi kara laga dhaho ama xitaa la xanto marka albaabkaas wuu ku wanaagsan yahay wixii marka intaa ka dambeeyana maxaa la yidhahdaa soomaalidu
aada uguma diirato inaynu ka sheekayno barbaarnimadeena iyo caqabadahayna marka intaa siyaasadda laga soo tago caruurnimadeena soo kordhaya waxyaabaha aynu soo marnay marka taana waxaa iyada nafteedu wax weyn u tahay caqabad walba adduunka ka jirta ama qofkeen uu wajahayo si laba u ah qofkii ugu horreeyay wajahaya dad badan oo laga soo horreeyay ayaa hore usoo maray marka inaynu naqano dimuqraasiyiintii naga horreeyay oo ka sheekeynaya barbaarnimadoodii dhallinyaronimadoodii siyaasiyiin markay noqdeen madax markay noqdeen arday markay heleen waxay abuuraysaa dadku inay ku baraaraan caqabadahan iyo waxaan haysta cabdiweliga waa kasoo gudbay annaguna waa ku gudbi karaynaa dadka kalena waa kasoo gudbi waana mid ka mid a waxyaabaha ugu waaweyn oo bugaagta iyo taariikhda laga barto in la fahmo wixii dadku ay soo mareen iyo dhacdooyinkii soo dhacay intaba marka intaa kadibna dadka meeshan jooga iyo martida kaleba waxaan ku dhiirigelinayaa in horta buugga la akriyo cabdiweli waxaan qiyaasaadaa xiisad uma hayso lacag looga qaaday buugga laakiin sheekadiisii iyo noloshiisii wuxuu usoo joogay laakiin dad inaynu naga aqrinana idan ugu tahay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha puntland waxaan ku dhiirigelinayaa isagana inuusan buuggu noqon mid ay heli karaan dadka awoodada dadka ilmaadka ah iyo mid meelo koobayana jaamacadaha iyo maktabadaha wadanka ama gobolka geeska Soomaaliya meesha ka tagto dhan ay la geeyaan wax fiican weeye oo qof walba ay u fududaato inuu helayo uu helayo kafta gobolka haddii uu dasado gobolka Ingiriiska markii hore lagu qoray ra'iisul wasaaraha wuxuu ka sheekeeyay Ingiriiska Soomaaliya waxaan isku soo koobayaa cabdiweli anigu lama soo shaqeyn laakiin buugga ayaan soo akhriyey marka waxaan raacayaa qaabka maadaama cinwaankuna uu ahaa markii la ii sheegay inaan barnaamij ka soo qayb galo bandhigga buugga ayaan ka hadlayaa iyadaa malaha kasoo bixi doonta cabdiweli waxa uu yahay maadaama aanan la shaqeyn iyo sida buugga looga faa'iidaysan karo buugga waxaa la ii keenay shalay mise daraad baa raxma ii keentay marka waqti badan oo buugga ku akhriyo ma haynin laakiin xiisaha buugga ii lahaa muddada kooban baan oo biisiya ku akhriyey waxaan isku dayayaa qaababka loo raaco book reviewska ama buugaagta dib loogu eego wax looga sheego inaan raaco qaybo ka mid ah haddii aanan maxaa yeelay book reviewada siyaabo kala duwan baa loo sheegaa marka anigu midkaan jeclaystay aan raacaya 3 qaybood baan buugga u qaybin doonaa mid waa qaabka buugga u qoran yahay midna waa qodobada uu ka hadlayo ama issueska midna waa gabagabada buugga waxaan ka dhihi doonaa iyo anigu kuwa hore waxay ku saabsan yihiin buugga objectively kan dambana aniga waa subjective anigu sidaan u arkay buugga kala guurkii kakanaa ee Soomaaliya waayihii iyo waxqabadkii ra-iisul wasaare cabdiweli maxamed cali gaas horta wuxuu qoran yahay qaab qurux badan jaldiga buugga waa qurux badan yahay waxaana ku sawiran ra-iisul wasaare cabdiweli oo maxaa la yidhahdaa jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa war ka jeedinaya buugaag badan oo Soomaali oo la qoray baan arkay buuggan waxaa qortay madbacad aada u fiican buugga beejajkiisu iskama soo daadanayaan oo iskama dhacayaan quality fiican bay ku qoran yihiin jaldigiisuna si fiican buu u qoran yahay waxaa kaloo cajiib ah anigu waxaan ahay dadkii af Soomaaliga wax ku soo bartay oo dhadhansada af Soomaaliga oo runtii ka xun sida Soomaalidu hadda wax u qorto dadka meediyaha wax u qora kuwa website-yada wax u qora af Soomaali isdhex yaala aan lahayn punctuation fiican and logical sequence si fiican isula socon hingaad fiican lahayn waxaa cajiiba buuggan si fiican ayuu xag hingaadeed iyo xag sentence ama hadalku siduu isugu xiran yahay intaba u qoran yahay iyo punctuationkiisa waxaa kaloo cajiiba
taas marka awal baan ogaa cabdiweli inuu yahay nin af soomaaliga aada u yaqaana buugga af soomaaliga ku qoran waa af soomaali macaan oo hufan oo aada ku raaxaysanaysa intaas waxaan ka dhihi lahaa buugga qodobada buuggu ka hadlayo buuggani wuxuu dul marayaa xaaladihii siyaasadeed iyo in yar oo dhaqaale ee dalka soo maray wuxuu kaloo ka hadlayaa koritaankii cabdiweli waxaan u bixiyey koritaankii cabdiweli iyo waayaha dalka ayuu ka hadlaya waayaha dalka 1960kii ilaa 69kii oo buugga aad ka dhadhansanaysid inuu yahay waqti the golden time markay noqoto siyaasadda soomaalida waqtigii dahabiga ahaa. I know it could be controversial laakiin buugga haddaa akhrisid cabdiweli wuxuu tilmaamayaa waqtigaas waqti inay jirtay maxaa la yihahda maamul wanaag inuu jiray inkastoo xisbiyo iyo musuqmaasuq iyo xisbiyo badan iyo wareer uu jiray laakiin inay jirtay dowladnimo wadaag. wuxuu tilmaamayaa maalan in ay uusan jirin qof xabsi u xiran dadku ay xor fikradooda u ahaayeen joornaallo xukuumadda wax ka sheegaya ay jireen ururada waxaa la yidhaahdo syndicates ama golayaasha maxaa la yihahdaa iskaashooyinka ururadu ay badnaayeen. wuxuu tusaale usoo qaadanayaa maxkamaduhu haddii laba qof wax kugu dhufto inaad isbitaal tegaysid oo bahal la dhaho rifeer aad soo qaadanaysid oo qofkii kugu dhuftay aada u geynaysid oo qofkaasina uu stationka tegayo iyadoon boolis la socon cadaaladdu meeshay maraysay. wuxuu tilmaamayaa waqtigii 60kii ilaa 69kii oo isugu jira waqti waxyaabo badan oo wanaagsanna la qabtay aada moodid inuu asaaska u dhigay burburkiina xagga caburinta iyo oo ay ka dhalatay jabhado iyo dil iyo xarig iyo soomaali kala tagta. wuxuu kaloo ka hadlayaa qeybta saddexaad intii wixii burburka naga qabsaday dhibaatooyinka jiray iyo dib soo kabashadii iyo halgankay soo martay. cabdiweli koritaankiisii iyo meesha uu soo gaaray waxay leedahay wax la yihahdo milestones heerar uu soo maray iyagiina wax yar baan ka tilmaamayaa sida buuggu sheegaya. dhowr qof ayaa ku lahaa saameyn weyn ama milestoneskiisa. mid ka mida nin iga horreeyay haddaata sheegay wuxuu ahaa kii ugu horreeyey adeerkiisa cabdullaahi gaas oo haddii uusan cabdiweli oo awal reer baadiye ahaa xamarna laga soo cayriyey oo baadiye loo celinayo haddii uusan mareeb ka heleen cabdiweli uu hadda ahaan lahaa nimaynaan maqan oo baadiyaha maxaa la yihahdaa ciid dhulka la yidhaahdo oo meeshuu ku dhashay ah uu ku basi lahaa. laakiin nin adeerkiisoo naxariis badan eedadiis naxariis badan baa actually khasabtay laakiin nin adeerkiisa oo jecel in dadku mustaqbal yeeshaana cabdullaahi la yidhaahdo ayaa la haray oo waxbaray. waa milestonekii ugu horreeyey oo noloshiisa wax ka bedelay. cabdiweli tii labaad oo wax ka bedeshay waxay ahayd wasiir la yidhaahdo cabdullaahi warsame nuur oo wasiirka maaliyadda u ahaa ayaa cabdiweli oo ka niyad jabsan wixii jiray shaqo la-aantii wasaaradda usoo kallaha aan shaqo qabanin ayaa isbarteen oo la hadlay isaga ayaa ka dhigay agaasimo waaxeed. wuxuu ka mid ahaa iyaduna wax noloshiisa wax ka bedelay milestone. qoladii saddexaad oo wax ka bedeshay waxay ahayd qolo la yidhaahdo sida buugga ku qoran USAID iyo USAID marka waa naqaanaa iyo AI. I think buuggu ma sheegin AI waxay tahay anna ma garanin laakiin labada qolo isla socda iyo qolo la yidhaahdo afgarad ama AFGRAD I think waa magac la soo gaabiyey qolyo jaamacadya afgarad iyo nin la yidhaahdo Hamilton oo jaamacad
cabdiweli uu tegi doono Vanderbilt la Nashville ku taala ka ahaa hormuud intaasoo qof ay soo socota ayaa ka mas'uul ahaa milestone-kiisii labaad oo cabdiweli inuu Mareykanka u soo aado maxaa la yiraahdaa scholarship qolyahaasa dhaliyay isagoo intuu imtixaan galay muddo fiican keenay la geeyey meel sagaalaad oo ay fogaan lahayd inuu helo jaanis wax ku barto milestone-kiisa afraad waxaa ka mas-uul ah gabar qurux badan aada u fiican oo PhD sameynaysay oo la yidhaahdo Hodan Siciid Ciise oo not only inay guursato ilmo u dhashay laakiin waxay ka badbaadisay isaga oo waddanka laga soo cayrin rabo oo aqoon waaye isagu u sheegto waxay idin sheegaya buugga ku qorayiin buugga siro badan baa ku qoran laakiin kulligeed idima sheegayo si aad loo xiisata laakiin sheekada isaga iyo Hodan aad bay u fiican tahay marka Hodanna way badbaadisay not only inay maaragtay jacayl siisay ninkan wareersan way u dhashay laakiin waxay badbaadisay iyada ayaa Mareykanka inuu joogo oo mustaqbal sii yeesho ka mas'uul milestone-kiisa shanaad wuxuu ahaa jaamacad Niagara la yiraahdo oo siisay inuu professor noqdo oo wax ka dhigo ka bacdina ay fursado kale ka dhalan doonaan milestone-kiisii lixaad iyo tiish toddobaad waxaa ka hadlay raggii iga horreeyey waxaa weeye ra-iisul wasaare Farmaajo oo u magacaabay ra-iisul wasaare ku-xigeen iyo wasiirka qorsheynta waxay ka mid ahayd noloshiisa wixii saameynta ku lahaa ama siyaasadda soo geliyey waxaa iyadana ra-iisul wasaaraha inuu noqdo ka mas-uul ahaa milestone-keeda ama wax fiican ha hata wax kalata laakiin isaga u ahayd waxay ahayd heshiiskii Kampala sida halkaa ka muuqata cabdiweli wuu nasiib badan yahay isagoo dadnimadiisa mar dambaynu arki doonaa markaan buugga aragno laakiin wuu nasiib badan yahay isagoo baadiye loo wado ayaa gaari benziin istaagay shidaal istaagay oo adeerkiis ku fakaday wuu nasiib badan yahay oo isagoo meel cidlaa iska jooga oo wuxuu sameeyey garan la by the way cabdiweli aad buu yani noloshiisa runta uga sheegay sheekada marka uu shaqada qoranayo jaamacadda ka bax haddii laydin sheego maalin bay qaadan kartaa eedadiis naagay daris la ahayd naag eeddo u ahayd nin ay taqiinay qofka lagu hayo oo ka mas-uul ahaa wasaaradda maxaa la yihahdaa maaliyadda in lagu qoro nasiib kale ahayd haddana wasiir Cabdullaahi oo ku tilmaamay inuu ahaa nin cadaalad badan oo Soomaali fiicana ayaa haddana u damqaday oo agaasimo waaxeed ka dhigay oo soo bootiyey waa nasiib kale dabcan nasiibku wuxuu helayaa qofkii dadaala oo wax qabsada marka cabdiweli naftiisu marka adeerkiis yiri haddaad wax baran baadiyahaagii baad aadaysaa wuu dadaalay waxbuu bartay marka wasaaradda loo magac marka eedooyinkiisa uu aad marmarayo wuu dadaalayay wuu dhex socday and so on marka isaga dadaalkiisa iyo nasiibkaa isu heshaday buuggu wuxuu daayta waxaan ilaaway markaan sharaxayay buugga wuxuu ka kooban yahay 340 page wuxuuna ka kooban yahay buuggu 9 maxaa la yihahdaa chapter iyo 9 cutub iyo lifaaqyo badan lifaaqyo 6 ah ayuu ka kooban yahay marka waxay ka mid tahay qawaaniinta book review-ga in la sheego waxaan ku gabagabeynayaa kelmad baan cabdiweli ka dhahaya sida buuqa ka muuqata iyo waxyaabihii soo maray cabdiweli sida buuqa ka muuqata waa hogaamiye siyaasadeed oo leadership fiican leh oo ay ka leadershipka waxaa hogaamiyaha ugu muhiimsan wax la yiraahdo
empathy ama emotional intelligence gaaladu dhahaan cabdiweli waa nin dabacsan oo dulqaad badan oo mutawaadica yani hambala aynoo soomaalida inaysan u aqoonin fiicnaan iyo hogaamin qofku inuu dabacsan yahay maskiin bay dhahaan qaar annaga naga mid ah nala ku sheegaa soomaalida waxay jecel yihiin ninka geesiga ah oo dadka dila oo qayl geesi waxay u yaqaaniin qofka dalka dila oo qayliya oo dadka kala qaybiya laakiin cabdiweli sida buugga ka muuqata meelo badan dad isku jiid buu sameynayey wuxuu sameynayey inuu wuxuu fahamsanaa in ay ummaddu inay isla shaqayso sida keliya wax ku hagaagi karaan dayici jiray marka midda kale waa nin dadka u dabacsan sida hadda uu inoo sheegaya wasiir ku-xigeen ra-iisul wasaare ku-xigeenkiisii gurigiisa daydkiisa meel kasta ayaa loo seexanayay annaguna waa ku aragnay taas cabdiweli waa aqoon-yahan iyadoo hadda la iskuma hayo inuu professor yahay jaamacadda Niagara Falls kasoo bixiyo PhD ku haysto economics waa ognahay waxaysan Soomaalidu ogeyn ama qaarkeeyo ognahay cabdiweli waa fanaan uu heesaa uu cod macaan yahay qofkii heesaha jecel suugaantana aad buu yaqaanaa hadduu kaaga sheekeeyo fanka Soomaalida fanaan kasta marka uu fanka soo galay marka uu gabay tiriyay ama hees tiriyay marka uu hees qaaday meesha uu isagu joogay markaas buu ku sheegi karaa iyo xiriirada ka dhaxeeya waxaan rabaa inaan idiin sheego sayna markasta serious u ahaan buug wuxuu leeyahay sheekooyin dhowr oo qosala cabdiweli iyo goodax markay New York yimaadeen diyaaradda hadda markay soo raaciyeen cabdiweli markuu horeyso diyaaraddu raaco ahaa marka waxaa sheekada ku qoran waa la soo khasbay waa la soo jiiday si diyaaraddii uu ka baqaya ma intaa buugga kuma jirto anaa ku daray laakiin markii diyaaradda la soo galay ayuu wuxuu ku dhaxamooday waxaa la yidhahdaa dabayshi waa dhamayrada wuxuu kale qaboojiyaheedii marka goodax oo intaas ku dhaamay ayaa beledweyne diyaarad baa ka imaan jirtay laakiin dhuusamareeb diyaarad ma lahayn marka intaasay ku kala duwanaayeen markay tageen Maraykanka New York ayay cabdiweli markaa weligiis TV ma arag laakiin goodax TV oo arkay beledweynaha TV lahayd malaha marka cabdiweli wuxuu ka xanaaqay commercialka u soo gala film bay fiirsanayaan commercial baa ka soo dhex galay cabdiweli wuxuu garan waayay commercialkan koolada iyo movie-ga sheekadiisa waxa ka dhaxeeya marka goodax wuxuu leeyahay waxay waa halkaan xagee ku aadanta and so on laakiin haddaan kaftanka sii wado cabdiweli dhowr sheeko uusan buugga ku sheegin baa jiro annagoo ognahay oo qolyo kale noo sheegay marka qaar baa idiin sheegaya qaarna aad idinku sheegi mayo horta dhuusamareeb markuu joogay adeerkiis gaas theaterka meesha fanaani riwaayadaha gobollada maraya meesha lagu jiro dhuusamareeb adeerkiis baa lahaa maqaayadda adeerkiis bay ahayd marka cabdiweli theater manager buu ahaa aan title wadanin marka dadka dhalinyarada iskoolka la dhigata ayuu mootin jiray maxaa la yidhahdaa lacag la-aan iyo waxaas oo fankar halkaasoo ku bartay taa idiin ma u sheegin waxaa kaloo jirta sheeko la yidhaahdo inuu maqlayaa fiican wuu isqaafilayaa sheekada waxaa jirta waxaa la yidhahda cabdiweli markuu soo qaadanayay viisada Maraykanka safaaraddii wuxuu la tegay raadiyo yara oo gaalkacyo laga qaato buugga kuma u sheegin marka ninkii ka qaaday interviewga ciir buuggan maxaa raadiyahana wuxuu ka baran jiray luqadda Ingiriiska maadaama uu Maraykanka u socdo marka waxaa la yidhi maxaa u wadataa raadiyahan marka wuxuu yidhi raadiyahan waxaan rabaa inaan wararka ka dhegaysto luqadda Ingiriiska laga barto marka waxaa la yidhi see waxaa u socotaa luqadda Ingiriiska meesha laga barto warkana annagaaba generate garayna raadiyo uma baahni tan ugu dambaysay waxay ahayd cabdiweli markuu Virginia tegey oo jaamacadda isagoo dhigta buu in adeerkiis u yimid fasax jaamacadda lahayd marka waxaan u bixiyey Virginia iyo furihii qaldamay
marka ilaadeegs baa furo siin lahaa furo wuxuu siiyey master key ah cabdiwelina master key ma aqoon marka qolkii ilaadeegs baa aqoon waayey qolalkii buildingka oo dhan building qolal badan buu leeyahay buu furfurtay marka waa la dacweeyey cabdiweli 3 beri xabsi ku jira كابتن كل حاجة يدخل شيء كابتن واحد يدخل شيء لا يدخل بس نسيه لكن عشان كده قبل واسوق قبل يا قبل يا أكتاجن ما دام إنه كهل اللي بوجع عبد الولي قري ما مغلى يستهبال كان مرة ويستبيلي مرة ويستاري بوجع وبوق قيمة بدن قطع على ودي مايو لكن بوجا يدي شيء مركا يدي قاعد عن سر يرى قرطان كذا برضو واحد يدي شيء وكقرن مركا هذا يزوجي ذاتي كيف تنادى يقول له أنا هو قارا كقرن مركا بوجا بوقي ما بدن أو تم معلومات مهمة وفائدة ولي هي أرضية علوم السياسة معمول هناك حلين خلافاتك يوليبا نقالها علمي نقالها وحتصل الله عليك مناسبة هي البركة رئيس الوزراء عبد الولي ما يستمس في سيرته قال لك أي أخوان قدر لكن وين البديهة سماه هو ما رتناك أي أنت حركت يتميز قرح صديق وقبل ما لها وسر ونص على يقول ساحب كيس ويقول قرح دينا كمان يتمها سنا وشان يستيهم وصان يست فلي قال لي لو تمها البادي وشان يسجل أنا وأسرية مركز الوقوية ونور في عندها لكن أنا أقول أن إحنا كذي في الأول وحنقول كذا مايلستونز كي رئيس الوزراء عبد الولي اللي تريد يوم حاكم مكان روح بورنا وقبرنا horta waxaa buuga loogu talagalay batuladiisa waa in wax laga barto ee maaha in la iska fiirfiirso ra-iisul wasaare cabdiweli cali maxamed geedi ayaa taariikh ku leh laga tegay laakiin anaa sheeganay ra-iisul wasaarihii ugu horreeyay ee dowladan waxba haysan ee qalin iyo maskax wadata loo dhiibaan horta ay ogaada waxay halkan soo martana waad akhrisan doontaa buug badanna way soo socotaa shabeelle buug senterna wax badan bay wada sheegagelin doonaan soo dhawaada aw jaamac ambar centerna waa la dhigi doonaa buug fara badan way soo guuxaysaa in isugu weyno dowladdii aan ra-iisul wasaaraha ka ahay allah u naxariiso madaxweyne cabdullaahi yuusuf oo meelay salka dhigta la ee la diiday dowladdideedu ahay dadku kalama roonin ayaan joogan dejinay marmarka qaar taariikhda meel lagama sheegi karo iyada ay isqorayseen siyaasiyiin fara badan waxaan arkay dhahaysay markii ugu horreysay ayaa wasiirada arrimaha dowladda inaad muqdisho ku sheegay waxay ilaasan yihiin inay dowladda ku sheegaan horta ogaada meesha dowladdu ay ka dhaqaaqday ee aqoonsiga ka heshayn lahayd waxaan uga jeedaa taas barnaamijkan la yidhaha joint lean assessment inaan laga faa'iideeyo loo marayna waxa lagu shaqeeyo iyo macluumaadka daraasadaha dalka laga sameeyey horta tiimkii bilaabo ka mid ahay wasaare cabdiweligaas oo maraykan uga yimid isaga iyo uga kala badan 40 aqoonyahan ayaan daraasadaas u dhiibna joogan oo ka mid ahay professor maxamed cabdinuur waa dhibaanki iyo isaga iyo rag kaloo aanan tiri kara iyo gabdhada daraasadii oo qeybta ka qaatay gobolada dalka wada maray dadkana bartay ayaa ku daray sababta inuu siyaasadda raasoowaana ku guuleystay milestone laga tegay ee lagu ogaana qodobkaas qodobka kale een ku daraya waxa weeye ra-iisul wasaareyaasha dalka soo maray iga dib aniga iga dib intii ka horeysay ma wajira waa ana hadda malaynayaa taariikh gaara ayuu leeyahay cabdiweli caligaas laakiin taariikhda gaarka waxaa ka horeysa mid aan ugu leeyahay geedka qaranka la waraabinaya maalin walba ee la isku bedelaya ninkii tamaayada ayaa tahay
إن الصومالي وسيدة تمسنا الدولة العربية محمد سياد الله حارس هبيك وقبحي لحي لما نجي جنوب 1991 كذب الدولة العربية ليك قلت علي أنا إلى الله حارس من عبد الله يوسف أنا هاي مركب أنت برضه الموسيقى كبر ولا هو قيمة أبدا هو عبدولي على كاسو بولي كساركم الجانب من هو ما يصنع ناس كما بقول أنت كذب وحنا بوجا هذا الشيء هذه وحكم قرنه كيس تبيض الله شيء دكتور قال ما يعني إنه خريستان الربانية وانا بن لكن عبدولي جاس تاريخ دبوجا يعني هو سد أحمد مرة سنة dan yariisi waxbarashadiisa uu ka soo bilaabay oo markuu wasaaradii lacagta ku shaqada ka bilaabay sheegay Cabdullaahi Warsaman Allah uu naxariistay wajooga taariikhdiisa oo burburkii dowladda iyo Mareykan iyo wixii ka dhacay isaga oo ku qoray inta badan aqoon-yahanadii soo noqday dalka laba ahaayeen oo ogaana dhalinyarada gabdhaha ay ugu sheegaan fadhiya oo qaarkiin dibadda ka yimid xilal kuwa soo doontay markii xilalka ay waayeen aan garanay dalka iska joogaan halgamaan ee noqday iyo kuwa markay xilal hore iyo hadday waayeen dalka u shaqaynayay ayuu ku ogaanayaan dalka haddaan loo bareerin oo waqtiga dib kale oo adag aan loo shaqaynin gadaal looma raaxaysan doono marka jiilalka maanta jiro dhalinyarada iyo kuwa soo socdaba buuga hala akhristo waa fariinta ay siinayo raggii dowlad xafiis yaale anigu xafiis ma arag anaa bilaab hal xafiisna ma lii sheegin layguma wareejin hal institutionada loo marka dowladaha isbedelay taariikhda ayaa looga baahanyahay in lagu xuso tareenka Soomaaliya ha socdo cidda tahawul horta aan ku heshiino inuu socdo waa qofku wax isdari karahay ilan siyaasaddu dhibna waa leedahay cilmina waa leedahay faa'iido waa leedahay marka dowladnimada aan ku muujinana uga jeedaa waxa aan idin sheegayo fariintaydu ay tahay intaas kadib waxaan rabaa gobolka in la gaatee taariikhda laga barto waxa ku badan tubada sagaalka hore sheegaya iyo mufaaqyada in la akhristaan rabaa in wax laga barto laga faa'iidaysto waxaa galantaada muudanayaa gobol warsame iyo axmaduur carabi dowrkay ka ciyaareen waa ugu hambalyeelayaa gabagabadina waxaan rabaa inaan madaxweynaha dowladda oo weli siyaasadda u diyaarsan ka bixin haddee cid ka baxdaba anigu maanta siyaasadda lagama baxayo waa laga dhintaaye waxaan u hambalyeelayaa isaga iyo xaaskiisa waxaan u rajeynayaa mustaqbal kale oo iftiimayo oo inta uu weli awoodaya aqoonta hayo oo energy hayo inuu dalka marka la wadaga rajeynayaa hambalyo ayaan leeyahay idiin salaamaya dhammaantiin hodwan waxay tiri konton sano la aroorinaye aniga 40 baan jiraay seeba konton aad iyo aad waxaan u mahadnaqayaa qabaqaabayaashii xafladdan hormar iyo raxmo iyo tiimkeeda iyo walaashay Firdawso oo jaamac Cumar Ciise Center oo ayagoo Mareykan joogta ka qalqaalaysa halkan xafladda si fiican loogu dhacdo wayna muuqataa idinkana dhammaantiin intiina waqtiga soo siisay qaaliga waxa la siiyay waqtiga ugu qiimo badan aad u mahadsantihiin waxaan kaloo si gaar ah ugu mahadnaqayaa saaxiibkay Axmed Maxamed shabeelle book show oo buuga daawacay waqti badan la geliyey runtii juhdi tiro badan iyo goobadii wasame oo halkaan nala joogin laakiin nin qiimo leh oo يعني الصومالي وكان أحمد عيسى عود أنا بوق إنجليز بقول إنك ترجمة نكاوي
طبعا سحيتانك ويسو ديري إن الله سبحانه وأخريه أن مارتي كواليتيغا أن كو كنترولو لكن شغالة أنت سبضانيك قبتين خير الله سيو وأنين آد يسو برشادة حقا بوغاكت آد عانو بأوهية ولو يقانو وحنا إن كلا سيدو كلا حير كايلا هذا أو جامع عمر عيسى إلهي هو نحريستو أنا نور جرب الله كلمي واجي سوالي الدولة بجرتي أكاديمية كلها كلمي أنا مقبل علينا بوخر عليه أو نيوه يعني الوزارة صورة لكن أنا هاي سكول دكتور كلاس كصدحان أيام بوخر ير شكوينا مركب وقتي قاسول جودي أكاديمية نقل كل جوبي كبعدنا وقتي الوزارة هذا حكمنا جيبوتي أو جامع عجائب وها وأنك تعرف أن صوت على المغاني بوقت أبو بدن دوري وقيمها بدن رمتي وكم إذا قبول قبل سيد عبد الحسن وعان كانوا وتقانا يبوق يسود بيو كجهل يحيى القرنشبكي الصومالي أو جامع مركشة كان تاريخ ليسا يسوي الربادية ودليرة أيام من التقاليد عان لو قال يعني أيام لويس وهو أكيد فاجئنا تاريخ الصومال كبرية كسوري ورجال كي إنجليز إنه وح عندك تاريخ لنا نوقره سودع كرتا مركزو أنت أول دانسري أيوب برامة إنه تقرأ تاريخ الصومال it was 1940 أفرتمية دي بيعي إلى أكد التروبوري لو جرب واحد مفكر فهمتي وأنا ركومند قرينا يا إن هذا أكاديمية أفك الصومالية حمر رقصني جيس كافريكون ده هذا كل بدوبين أو إسماعيل عمر قال لي حسن عشان هاي قاعد بيجين إلا هو ما قاعد دراه وجامع ورئيس تاني فهمت هونتا بوجا وحن كأور الله وحن أور ما يصوتوا قرنة يو عود يو كوفي يو يعني عبد الوهاب كل صاحبي عبد المؤمن كل واحد يوم قرنة بعود كين عبد المؤمن صاحب كي أنا أرجع على هاي فهمتي great man تعرفوا كشة كمبالا وصح هل مكتج لكن صبحي مركي وفرمات السود هلك سود دقي صبحي أنا جي سجى يجبر يا الصفي علي ومركي على شغين السماهينا ومركي ورا عنينا ما نيجي ليه هذا يقول الرباب عليه ما نيجي كده جي ها الغير أو تجني مركي وماشى تسكشوا كده عايو وفرماتشو يو مدحوينه إليهين هذه أيام وزاركم بالجار نقولها ما مركز ده إن بروسس بيوبهنته وزارة نمد مركب حاسيني نيك أودي عن حق الفريق موت مخايد ولا فريق وحاسينه أورانيا نيك وصل حق القال صدي وشردني خيارات الدنيا وهاي حلوية عبد النور والله markii loo yeeray ayaa waxa madaxweyne shashrax ku yahay hadalka shaqsi baa jeedinayay madaxweyne ma soo wiish fadhiya laakiin kuwa jeedinaya ma aha Sheekh Shariif waxa inta ii sheegtay ugu soo rabay inta loo soo celiyay laakiin khiyaamada la sheegay isaga soo iga badan yahay ninka wuxuu ku yiri madaxweyne هذه الوزارة عسيول فرماتشو سيبها أنا كحقيقة سنة إنه كوكو أميرنا إن عبد الله مرحبس قلت أنا ماشى يعني كنت ماشي كاز نعم في المركة بوقا وكاكا تصدق تاشي كذا وحوي لو عدارنا كل جيل كتاب مريض كتاب ممكن هو بيصير كذا كل كتاب مركة كل يسوي التاريخ وكبد هاي بوجا كقرية صحيح عبد الوهاب سوى كلام عبد الوهاب أنا نقول مركز وزيرة قرقوري يا وحى كان يقول ما قرابي هيرو سكاي براي داود أنا من اللي حقها براها إلى قرابكيه مركز سوى سعودية بدعم لها وزير حجام بيحبها وهم عابية مركز
waxaad noqonaysaa ra-iisul wasaare ku-xigeen iyo wasiirkii ganacsiga horta 5 beri ayuu shumayay ما exaggeration maaha 5 beri ma soo kicin odayga marka isaguna taariikhda ayuu ka mid yahay buugga ku qoran markhaatiga nool oo waxa meesha ku qoran ka hadlaya ayuu ka mid yahay maxaan u qoray buugga runtii buugga waxaan u qoray waxay tahay dadka kula jooga oo kula nool waktigaaga waxa dhacaya way ka warqabaan hadda idinku Soomaaliya ka dhacay oo dhan xafiiska Xasan Sheekh Caawi wixii ka dhacay haddii laba kala isku laayay waa ka warqabtaan social media walba jooga laakiin waxa weeye dadka aan joogin ee mustaqbalka imaan doona jiilasha Soomaalida ahi inay at least waxun ka bartaan wixii la soo maray waddanka meeshu ka yimid dhibihii laga soo maray shidooyinka ma fahamtay yani waxaan maranayaa waqtiga ugu khatarta badnaa ayaan ka soo shaqeynay iyo saaxiibaday Soomaaliya wixii qarxiyo dhacayay qarxii tiyaatarka qarxii aniga madaxweyne xasan sheekh uu qabsaday meesha la yiraahdo jazeera waxaas oo dhan waxay ahayd dibihii la marayay ka mid ahay laakiin waxaan u bareeray onugeynde waddanka inuusan ahayn inuusan yani ahayn maxaa la yidhaahdaa uusan Sweden ahayn waan ogey marka wixii la soo maray wixii dhacayay behind the scenes in dadku ay ogaadaan anigu inta badan waxaan isleeyahay buug kasta oo qof Soomaali u akhriyay qoray ama siyaasi ahaado ama Soomaali wax ka qoray badan siyaasiyiinta waxa qoray aad buu yaryihiin laakiin intii wax qortay oo Cabdullaahi Yusuf kamid ahaa Cabdi Xaaji Xuseen kamid ahaa Jaam Maxamed Qaari kamid ahaa liiqliiqata kamid ahaa يعني بوقتي أنه يعني كل وانا أخريه قف كستو أو سوماليا وكسو قبطي أو information كهيا إن هذا أخره وسكفي عنده صوته حبات كبر نيسا ترنجي بوقتي سكر دوانا وكبر على عده الماء سمنتر عبدي أحمد بوقتي قرين وحاسود لذو كابتاينس بوقتي قرتي قبل لينادو سوالي كبرتي مركا تذكر مرة خاركود waxay koornay hebel buugii soo xiga war adiga haddaan rabto buug adiga waxa aad rabto iyo sabab fakaraysa qora da adigu qor laakiin noo maanta qofka inay siyaasadda jecelahay iyo inaan nabcahay wax badan oo behind the scenes ah iyo waxyaabaha dhacayay information badan ayaad ka baranaysaa qasab ma Jaam Maxamed Qaali inaad jeclay qasab ma Cabdi Xaaji Xuseen inaad jeclay ana cadde inaad jeclay laakiin waxa weeye يا تاريخ الصومالي وهي وقعلوا بها هي ضدكم مركب إن أي أخرستان سؤال عن أخرس الآن بويريا ووقتهين حتى وحنا صبح السوشيال ميديا فيسبوك حلينا أنا بفتكر أديكت البانكوه وأنا واحد تعب إلى الفيسبوك هذا قبل هذا كور رجال يندوي بانقال حيو تجي مركب خويه وأوتك الصبحي دور ساعات بنسو جوجا لكن مركب خويه السلامتان أو نكتو أكثر الستو wixii ka dambeeyay shakadu way dhamaanaysaa marka aan waxa iska galaa Facebook way u jeedaa maalin dambe baa tusbax dheer bay wata hooyo loo 3-4 ma marka waxaan ku hooyo tusbaxan dheer ka badan mid ka yar maad waqti wax dheer oo aad u maarto u qaab daran baa kaas waxay tiri maad aday tusbaxa wax kama sheega maxaa ka yar sheegaysa tusbax ay sheegaysa Facebook marka waxaan rabnaa marka dadku inay wixii jiray ka bartaan hadda ilmahayga waxay yiraahdaan aabbo we learn more about you in this book marka ciyaarkan uma sheekeeyo baadiyaan ka imid ku dhashay wala soo kaxay xaar baa la keenay bawrba meel ku jira waxa uma sheekeeyo ilmahayga moogtay marka khasoo waxay ku leeyihiin buugan ka baran adiga waxa tahayba who you are حنود دتك لدي الماء يجي ولا لا وي markii lama laba sheekeysano taariikhdayda iyo maartay ma sheekay marka ay hope waxaan rajaynayaa current leaderska hadda joogaana oo odayaasha ah nimada yadda aniga xir baan joogay siyaasadda dad badan hadda 12 sano ku jira 20 sano ku jira taariikhda
oo yani leaders ka jooga farmaajo xasan sheekh shariif I hope iyo dad kale ra'iisul wasaarayaasha waddanka soo maray wasiirada cabdullah ku faraxsan buu qoray ku saabsan waxbarashada Soomaaliya inay iyana qoraan taariikhda sababtoo wax badan baa laga baranaya مثلا الشيخ شريف تاريخ الصدوق على شيء إذا هو معجزين كمية رنتي يعني ده الله من إلهي جدوا كلها حوينها وحنا نقوليه مركا إنه تاريخ سكشة كيو وضدك أقول واحد بدن بك بدريسة بين عالك يحتفكر كيسة يقفك عن الشيخ شريف أقول إنسان واقع نو أقول أنت وكبرني يوراجع بدن وليه هي يوم الصومر يدبت الصومر مركا عبد النور iyo ninka la yiraahdo Cabdi Wahaab iyo waxa kamid ahaayeen iyagu dadkii joogay laakiin hadda uma baahan inaan wax badan ka yiraahdo marka buuga ma rabo inaan ka sheekeeyo sababtoo ah ma rabo inaan spoil gareeyo idinka spoil gareeyo inaad akhrisataan idinku ayaan jeclaan lahaa marka ninka la yiraahdo Cawd ninka intaas waa la sheekaystaa soo inta sheeko qorayo dhan hoos buu ka noqday دور عضو كشيء بقى تلتوا روم أنت كسبسن سوماليا مركي شغال هذا الناس وجاي مركي هاي سكول كبحنا شغال ديار نوعه مركي تعال كبحنا شغال نودره دول دكان نصيب ربنا لنا فهمتي وحسنا هي جولد جنريشن نصيب كوب بالنار أي حاجة صوت حوالي from elementary school أولا إلى جعل أن كبحي ولي حتى بوجا textbook حتى ما نيبسن شيء جامعات ده يعني اسكت ده واحد كله حبرشوا العقل أنا حتى واحد يبسن شيء الدفتر كا وحلو قرو يقلق يلبس كده ركيه قاعد أنت هسا دولته أي أنت هسا أنو أنت أصلاً بانو يسجل أنت كله دولة دايا قطي تعال مركان دقاري اللي اسكت قلنا ده يراشينك يو حبرشة العقلان تا وحنا السنجل الله بقولي أفرت الشريعة ومركان العقد بدنا هاي ودقت $1,000 وأنا مليانية ودقتي أيام قاعدين اللي بينهم اسكت جامعة عصب جهير وأنا حسوستا كان دقيقة غير عصب هذا واحد بعضه يودي وسك بعضه أنا جا بول بند دقنا هاي بول كلا واحد دقنا لي إسماعيل بين حبره وساعدنا هاي دائما فيه وإسماعيل شو وحنود حي مسموش بينت كسر شيء ده لما بقول كسر شيء ده ironically قلنا واحد دقنا عبدول الشيخ أحمد قلنا واحد دقنا سعيد أفرت يدو وحن وذاقني صالوطة صدق هذا رئيس الوزراء صومري هل مرة بنشوف الجامعة ده روميتس نوانا لو روميت بهايين وبسوق شيء وذاقين أنا جاي إسماعيل سوريا وذاقني بقول بدقنا أفرت يدو صالوطة وذاق قلت مركز صوم بشو وحكى داريسا نلقى داريسا مركي أثرتها تكتو كل كذا كدني صحيح تكنولوجيا أسمرك الأمريكان تجي فاندربيلت ملء لويس هاوس باند تجي ودورو تري والله هي صراحة that's how it was مركز شيكوي بعد كل شيء كذا هاي مركز عندك كبحي أيها واحد يقول أسيستنت ماشي كوميتشر تشكله مركز أسيستنت كل العقد ما قاعدنا يكون لا بقول شيء وزارة المالية ده أنا قلت لك عبد الله ورسولنا كل شيء كذا أيها واحد لا يقعدنا يصدق كل شيء وشهادة أنا رحت وتعرف وكشة كيو ما بقولش برجع غير بديان كيم فخرية مركا كل لب عليه مو في اللب مركا واحد سري ورسيت كنت كتاه وزارة المالية مركا الطريق يبقى يدير شيء جاي الطريق ده لكن وش قيس أذاك السكري حاسكيس خبريتين ninka qaba beerma ninka qaba xaaskiis ma ninka qaba gabar uu dhalay ninka qaba eedadii
gabadheeda ninka qaba wey waa taligadaaga waxa weeye magacyada haddii la sheegay marra wadda qaar waa dhinteen haddana waa nool yihiin waxaa u socdaa waxa weeye agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda waagaa dubku yimaadeen baa yaqaan weeye nin yusuf cali nuur baan u socdaa saan ugu tegi lahaa marka adeerkay soo koriyey xaaskiisa habreerteed ninka qaba gabadhiisa ninka qaba in adeertii gabadheeda ninka qaba weynka u socda laakiin haddana waa shaqaysa what was easy saasna horta ku tegay dee ne iskolisaan ahay marka waa inaan helaa dariiqo aan maro waa inaan helaa life nolosha ku baraysaa dee inaad dadaashid oo noqotid nin halkan laga xusay oo la yihahdo cabdullaahi warsamo nuur was amazing markaan wasaaradda maaliyadda tegay waagaas waxaa iska jir jiray waxaa la oran jiray nimankan reer hebel la yidhaahdo reeraha ka dhashaan ka hadlaya waa kacaandiido maaragtay dowladdu ma ogola marka qayb baa laygu qoray qaybta waxaa noqday marka nin oo iska buula meeshan aan shaqeeyaan u imid waxaasoo dariiqa waxaan usoo maray habraha isugu geynayay inaan dee shaqo helo soo maahay marka maalin baa waxaan u tegay marka isaga yani ninkaan wanaaggiisa idin sheegay cabdullahi warsamo maalin baan u tegay nin baa ii geeyey adda australia ku noolyahay cabdiweli faarax qambi oo ay cabdullahi wuxuu ahaan jiray wakiilka golaha dhexe ee gobolka nugaal cabdulla wuxuu ahaa xeeraaliyaha gobolka nugaal markaas kusoo bartay laba loo yar bay ahay ninkaas ay saaxiibkii weeye aan ku geeyo marka wasiir ku-xigeen weeye wasaaradda maaliyadda waa ii geeyey wixii uga sheekeeyey backgroundkaygii familigaygii dhibaatadii waxaan soo maray marka show isaga laftigiisu marka maxaash cusmaan baa wasiira isaga maxaash cusmaana saaxiib ma aho iskuma fiicna marka laftiis waa buul xogaa uu ila tacaadufay magacaygu xaashuu qaatay oo magacay ku qoray cabdiweli maxamed cali ayuu wuxuu gashaday jeebka dambe waa iska ilaaway waa iska tegey wasaaradda la kala gooyey maaliyadda lacagta isagu si looga dhigay aniga lacagta laga raaciyey anoo marka ma shaqo tago maadaama buulaan ahay oon shaqaan haynin anoo iska jiifa baa ninaan saaxiib nahay oo atlanta joogo kaafi cabdilaahi la yihahdo ruu meydnahay baa wuxuu inta soo orday wuxuu yidhi waryaha war ma haysasaane maya markaasuu yidhi waxaa tahay agaasimaha canshuurta wax soo saarka wasaaradda lacagta marka war weysan kari waayo wasaaradda waxay ku taala laba taqaanaa lacagta waxay ku taqaanaa shangaani mise xamar weyn wey qaybta lacagta curuba kusoo horjeedka lacagteeda marka waxaan siri waxay ugu dheeraaday haddaan bas inaan qaato waxaan siri waa kugu dheertahay taxi baan qaata saan dhahay ugu soo arko waxaa kaloo laga yaabday marka caataan ahay ninkaa odayga hadda xayiirada coloosha yeeshay maaha wilyarna waana 43 qofna waa xukumi doonaa ilaa agaasima heed baan ahay markuu inta ii yeeray buu wuxuu igu yidhi inta lacag siiyey buu wuxuu yidhi nin falastiini ahaayoo gadi jiray jubbadaha sugursoonkii shaqaalaha hoostiisa wuxuu yidhi inta u tagto waxaa ka soo gadataa jubbado waaweyn si aad u yeelato sense of responsibility sa u noqoto qof yani mas-uula ninkaasi soomaali cabdullahi warsamo waa taqaani abgaalow laakiin waxaan is oran karaa markaan arkay dhaqankiisii isu u shaqaynayay yani qof soomaali ah oo ninkaa ka wadirista wallahi baan arag si amazing unfortunately waa dhow baa xaaskiisii iyo gabar u dhalay ku dhinteen xamarka fidkii marka ohio ku ogaa iyo toronto ka dhexeeyey marka khayr allaha siiyo marka cabdullahi warsamo taariikhtaas wey arrimaha cawad uu ka sheekeeyey oo tiyaatarka waa run tiyaatar dalisureeb riwaayad ma jirta makhaayadda markii riwaayaduhu yimaadaan lagu dhigo ayaa gurigu ahaa marka halkaas way meesha horta aan horta fanka ka jeclaaday oo ya cashucuud ba hadda ka hor uweysatay ya anyway
marnaba inaan idinka buugga waxaan jeclaan lahaa inaad akhrisataan wixii comment ah oo wixii aniga Facebook friend ila ayo saaxiibo wixii comment oo qabtaan oo hadda sixitaan daabacadna haddii loo celinayo saan u saxno in aad u suubino marka aad baad u mahadsantahay